mucamar al khadaafi madaxweynihii hore ee dalka liibiya wuxuu qaaday tallaabo geesinimaha xilligii uu noolaa. waxa uu isku dayay dhaqaalo badan inuu ku bixiyo sii deyntii madaxweynihii dalka ciraaq sadaam xuseen. laaluushkii uu bixiyey, awooddii ay isugu geeyeen sirdoonkiisa sidii loo dayn lahaa sadaam xuseen, iyo isbarbardhigga ku saabsan khadaafi dadaalkiisii iyo dagaalkii maraykanka. ku soo dhowow warbaahinta dhalad iyo macluumaadkeenna maanta. mid ka mid a garsoorayaasha wax ka xukumay allah u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka ciraaq sadaam xuseen waraysi uu siiyey telefishinka alcarabiya wuxuu ku kashifay in hogaamiyii hore ee dalka liibiya oo isna la dilay mucamar al khadaafi uu mar isku dayay inuu laaluusho saraakiishii maraykanka ilaalinaysay xabsigii uu ku jiray sadaam xuseen si looga soo saara dalka ciraaq ka hor intaanan xukunka daldalaada lagu fulin. garsoorahan oo lagu magacaabo muniir hadaad waxuu dhacdadaasi isagoo ka hadlaya uu yidhi maraykanka wuxuu isku dayay inuu dib u dhigo xukunka dilkii madaxweyne sadaam xuseen ilaa 144 maalmood. master hadaad wuxuu ahaa garsooraha sare ee maxkamadda dembiyada gaarka, wuxuuna ahaa garsoorihii xukunka dilka ku riday sadaam xuseen sanadkii 2006. hadaad isagoo sii hadlaya xog badanna bixiyey wuxuu sheegay madaxweynihii dalka ciraaq jalaal talabani wuxuu si maldahan u ogolaaday in la dilo sadaam xuseen, laakiin awood uma uusan lahayn inuu wax ka bedelo ama uu dib u dhigo xukunka dilka sababtoo ah xeerka maxkamadda caalamiga ah ma uusan ogolayn. haddaba hogaamiyii hore ee dalka liibiya mucamar al khadaafi waxaa la sheegaa inuu ahaa saaxiibka ugu dhoweey sadaam xuseen. intii ay socotay maxkamadayntiisii wuxuu adeegsaday dhaqaale aad u tiro badan iyo sidoo kale laamihiisii sirdoonka. ujeeddada ugu weyn waxay ahayd in xabsiga laga sii daaya madaxweyne sadaam xuseen inta aanan la dilin oo la geeyo gudaha dalka liibiya. yay ahayd ciddii xilligaasi ku dhiiran kartay inay wajahda maraykanka iyo xulufadiisii ku sugnaa ciraaq? maxay ahayd sababihii khadaafi uu doonayay in lasoo badbaadiyo sadaam xuseen? maxaa dhacay xilligaasi? mucamar al khadaafi allah u naxariistay wuxuu dadaalkiisi u dhan isugu geeyay sidii uu sadaam xuseen xabsiga uga soo saari lahaa. khadaafi waxaa lagu tirinayay xilligaas inuu ka mid ahaa dadka sida aadka ugu dhowaa hogaamiyihii ciraaq. waxaa ka dhexeeyey xiriir aad u xoogan, laakiin sababtaasi oo keliya ma aysan ahayn mid khadaafi ku riixaysay soo badbaadinta sadaam. maxaa yeelay khadaafi wuxuu ogaa dareensanaanta in seefta markiisa ay ku imaan doonto, sidoo kalena dhammaan madaxdii carabta haddii ay ka aamusaan dhibaatada sadaam ay soo wajihi doonto. marar badan wuxuu mucamar al khadaafi u digay madaxdii dalalka carabta isaga oo sheegay inaysan ka aamusin, indhahana aysan ka laaban arrinta sadaam. waxaa la wada xasuustaa hadalkii sadaam xuseen horay u yidhi taasi oo ahaa, aniga waxaa dili doona maraykanka laakiin idinka waxaa idin dili doona shacabkiinna. waxaana taasi ay noqotay mid dhacday oo xaqiiqo ah. sadaam xuseen waxaa dilay maraykanka iyo shiica isgarabsatay, halka qaar badan oo ka mid a madaxdii carabtana ay ku baxeen gacanta shacabkooda. waxaa laga xusi karaa madaxweynihii dalka yemen cali cabdalla saalax iyo madaxweynihii dalka liibiya mucamar al khadaafi. sidoo kale hogaamiye khadaafi wuxuu madaxdii hore ee carabtaasi ku yidhi, sadaam waxaa dilay maraykanka, idinkuna waad ku soo xigtaan. khadaafi marnaba kama uusan quusin kamana caajisan inuu soo badbaadiyo sadaam xuseen ilaa daqiiqadii ugu dambeysay ee daldalaadiisa. waxaa hubaal ahayd in khadaafi haddii uu ku jiri lahaa booska madaxda carabta ee ciidankiisu ay kaxayn lahaayeen soona badbaadin lahaayeen isagoo soo furan karay madaxweyne sadaam, balse madaxdii carabta ee xilligaasi waxay ahaayeen kuwo dabadhilif u ahaa maraykanka. haddaba noocee ayuu ahaa howlgalkii mucamar al khadaafi uu qorsheeyey si loo soo daaya sadaam xuseen? mucamar al khadaafi wuxuu isku dubiriday dhammaan hay-adihiisii sirdoonka. wuxuu bilaabay ololihiisii isagoo doonaya inuu soo furto master sadaam xuseen si uu ugu laabto taageerayaashiisii iyo sidoo kale shacabkiisii ciraaq. muniir hadaad wuxuu ahaa garsoorihii u xilsaarnaa kiiska sadaam xuseen. waxa uu yidhi, sargaalkii madaniga ahaa ee hogaaminaya ciidanka maraykanka ee ciraaq, ninka lagu magacaabaya paul bremer, waxa uu joojiyey xukunkii daldalaada ahayd ee sadaam xuseen. waxa uu dib u dhigay ilaa 15 maalmood. maxaa yeelay qaanuunka dowladda ciraaq ma uusan ogolayn in maalmaha ciidda qof la daldalo. laakiin dhaqdhaqaaqyada mucamar al khadaafi iskudaygii sirdoonka liibiya ay ku doonayeen inay kusoo furtaan sadaam kadibna ay ku wareejiyaan muqaawamadii ciraaq ayaa soo dadejisay in la dilo maalintaasi. qorshaha mucamar al khadaafi wuxuu ahaa in sadaam marka hore xabsiga laga soo furto, kadibna lagu wareejiyo muqaawamada ciraaq, kadibna loo duuliyo magaalada tripoli ee caasimada dalka liibiya si uu halkaasi uga sii wado halgankiisii ka dhankaa maraykanka iyo xulufadiisa. khadaafi wuxuu howlgalkaasi u qorsheeyay malaayiin dollar, lacagtaasi oo loo diyaariyay in lagu laaluusho saraakiisha ciidanka maraykanka kuwaas oo u xilsaarnaa ilaalinta xabsigii uu ku jira sadaam.
laakiin markii ay ogaadeen saraakiishii shiicada ahayd ee ciraaq ku sugnayd ee xilligaasi ciraaq xukumaysay waxa ay si degdeg ah u fuliyeen xukunkii dilka ahayd wax wadatashi ana kalama aysan yeelan xitaa Maraykanka. Garsoore Haadaad waxa uu sheegay haddii howlgalkii Muammar al-Qadaafi uu guuleysan lahaa Sadaamna xabsiga laga sii dayn lahaa waxay ahaan lahayd musiibo weyn sida uu sheegay, maxaa yeelay xilligaasi waxay haysteen taageerayaal aad u tiro badan oo hubeysan. sidoo kale Saadaad waxa uu sheegay in daqiiqadii ugu dambeeyay Sadaam Xuseen uu u tagay kuna yiri maxaa dardaaran ah oo aan ka gudbiyaa, balse Sadaam wuxuu ku jawaabay noolo wiilkeygiyow isaga oo ku jeesjeesaya. ugu dambeyn Sadaam Xuseen waa la daldalay waliba subax ciid Carafo ahayd, maalin astaan u ah muslimiinta ayaa la daldalay iyadoo dhammaan madaxdii Carabta ay ka aamuseen wax falcelin aan aysan ka samaynin marka laga reebo Muammar al-Qadaafi kaasoo si fiican u garanaya qiimaha Sadaam Xuseen. Sadaam Xuseen wuxuu ahaa hogaamiyihii Carbeed ee kaliya ee mar walba difaaci jiray qadiyadda walaalaha reer Falastiin, sidoo kale wuxuu ahaa hogaamiyaha kaliya ee gantaalla ku weeraray Yahuuda. Qadaafi wuxuu Sadaam uu ahaa saaxiibka iyo walaalka dhabta ah, balse nasiib darro qorshihiisii intii uusan gaarin oo islahaa soo badbaadi ayuu guul daraystay lana daldalay Sadaam Xuseen. waxaan filayaa warbixintan inaad macluumaadyo aad ku ogaateen. ka mid noqo saaxiibada nagu xiran, noqo ruuxa ugu horeeya ee like saara muuqaalkan. mahadsanid.